Gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii caasimadda Maxamed Axmed Amiir ayaa xilka laga qaaday. Amiir ayaa xilka loo magacaabay Diseembar 2024, waxaana laga qaaday Meey 2025. Wuxuu noqday mas'uulkii ugu muddada gaabnaa xil-haynta, isagoo kaliya hayay xilka muddo 6 bilood ah. Xilka qaadista Amiir ayaa waxaa la sheegayaa inay ku timi sababo kala duwan oo runtii la qiyaasayo inay sababtay xilka qaadistiisa. 1. In Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo ahayd ujeedada loo keenay dardargelinta doorashooyinka dadweyne ee ka dhacaya magaalada Muqdisho, iyo inuu dardargeliyo shaqada uu wado Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka iyo Soodhimaha, taas oo la sheegay in gudoomiyuhu wax badan uusan ka qaban. 2. In Gudoomiyaha ballanqaadyadii uu sameeyay ay ka mid ahayd dhisidda waddooyin waaweyn iyo in caasimadda ay la jaanqaaddo dunida inteeda kale oo ay noqoto meel cagaaran. 3. Saameynta warbaahinta iyo baraha bulshada oo si weyn loogu eedeynayay muddooyinkii ugu dambeeyay Gudoomiyihii Gobolka Banaadir ahaana duqii caasimadda Maxamed Axmed Amiir. 5. Dhisidda waddooyinka qaar ee magaalada Muqdisho oo burburiyay roobabkii ka da'ay caasimadda oo maamulka gobolka Banaadir wax badan uusan ka qaban. 6. Khilaaf xooggan oo Amiir kala dhexeeyay qaybo ka mid ah mas'uuliyiinta dalka, waxaana la sheegayaa in Gudoomiye Amiir uu xilkan hayay muddo 6 bilood ah. 6daas biloodna isbeddelkii uu ka filayay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax badan oo ka mid ah uusan ka hirgelin. Arrinta ugu weyn ayaase ah in si toos ah maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada lagu weerarayay Gudoomiyihii Gobolka Banaadir ahaana duqii caasimadda Maxamed Axmed Amiir oo xilka baneynaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxa uu magacaabay mas'uul wax badan ama xilal kala duwan dalka ka soo qabtay. Xasan Maxamed Xuseen Mungaab mar kale ayaa loo magacaabay xilka Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. Wuxuu caan ku ahaa doorkiisii muhiimka ahaa ee dhanka amniga iyo maamulka caasimadda Muqdisho xilli ay jireen xaalado amni oo aad u adag. Mungaab wuxuu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda Soomaaliya, waxaana ka mid ah Gudoomiyihii Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida. Intii uu hayay xilkaasna, Mungaab wuxuu caan ku noqday adkeynta sharciga iyo la dagaalanka dambiyada la xiriira amniga qaranka. Waxaa xilka Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho loo magacaabay sanadkii 2014. Intii uu xilkaas hayayna, Mungaab wuxuu ku guuleystay hirgelinta qorshayaal dib u habeyn ah oo lagu hagaajiyay maamul wanaagga, nadaafadda magaalada iyo amniga caasimadda. Muddadii uu xilkaas hayay wuxuu suuro geliyay dib u dhiska iyo ku shaqeynta xarunta aqalka dowladda hoose, magacaabidii iyo ku soo biirintii dhalinyarada ku soo waxbaratay dalka Suudaan oo uu magacaabay guddoomiyayaal degmo. Barnaamijkii Hanti. Muddadii uu xilkaas hayay wuxuu suuro geliyay dib u dhiska iyo ku shaqeynta xarunta aqalka dowladda hoose, magacaabidii iyo ku soo biirintii dhalinyaradii ku soo waxbaratay dalka Suudaan oo uu u magacaabay guddoomiyayaal degmo. Barnaamijkii Hanti isu soo celinta ee hana qaaday waqtigiisii, hirgelintii kaabayaasha dowladda sida dhismayaasha jidadka caasimadda ee bilowday waqtigiisii. Wuxuu sidoo kale soo noqday wasiiru dowlihii wasaaradda cadaaladda 2016-2017. Kadib markii uu dhammaystay xilkii guddoomiyenimo, Mungaab waxaa loo magacaabay wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda, isagoo ka soo shaqeynayay horumarinta nidaamka cadaaladda ee dalka. Mungaab oo hadda dib loogu soo celiyay xilka Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho, ayaa loo arkaa inuu fulin karo ajendayaal dhowr ah oo uu damacsan yahay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ajendayaasha uu madaxweynuhu ka damacsan yahay Mungaab ayaa waxay tahay waxyaabihii uu ku fashilmay gudoomiyihii ka horreeyay ee Amiir, oo ay ka mid tahay dardargelinta doorashooyinka dadweyne ee dalka ka dhacaya, culays xooggan oo haysta madaxweynaha Jamhuuriyadda iyo mucaaradka oo isku soo abaabulaya magaalada Muqdisho, iyo in uu isbeddel weyn ku sameeyo waddooyinka burbursan ee magaalada Muqdisho, iyo in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka xigsado dhibaatooyinka iyo weerarada kala duwan ee kaga imaanaya dhanka mucaaradka. Sababaha ugu waaweyn ee loo keenay Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaa waxay siyaasiyiinta u darso siyaasadda Soomaaliya ku sheegayaan inay tahay isbeddelka iyo saameynta dhanka mucaaradka, iyo in dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay disho ama ay joojiso warka mucaaradka ah oo Muqdisho maanta shir muhiim ah uga furmay. Waxaa kaloo la filayaa in ujeedada ugu weyn ee loo keenay ninkan ay tahay in mucaaradka dalka uu hadda u sii jihaysanayo badbaado qaran labo iyo ka hortagooda iyo arrimo kale oo aad muhiim u ah.
Maxamed Xuseen Mungaab xilkan loo dhiibay ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan uu la wareego. Gudoomiye Amiir oo muddo 6 bilood oo kaliya xilkan hayayna waxa uu banaanayaa xilka isagoo isbedelo waaweyn aanan ka sameynin magaalada Muqdisho oo ugu horeyso burburka wadooyinka, ballanqaadadii uu galay oo ahayd caasimadda inuu ka dhigo meel cagaaran iyo arrimo kale oo runtii muhiim ah. Xasan Maxamed Xuseen Mungaab oo xilal kala duwan soo qabtay ayaa hadda ku fariisanaya xilka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda. Mungaab waxaa loo arkaa inuu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu saameynta badan ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doonayo inuu isbedel weyn oo siyaasadeed uu ku sameeyo. Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaa loo arkaa hadda siyaasi samata bixin kara madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo soo magacaawday isaga. Haddii uu ku fashilmo waxyaabihii kala duwanaa oo laga baahnaa gudoomiye Amiir oo wax ka qaban waayay, isaguna waxaa la qorsheynayaa in uu raaco wadada Amiir iyo gudoomiye Madaale oo iyagu xilal kala duwan ka soo qabtay maamulka gobolka Banaadir. Ajendayaal waaweyn oo uu lahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna ay fulin waayeen, taas ay sababtay in xilka looga qaado. Shaqooyinka ugu horeeya ee horyaala gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaana ugu horeysa dardargelinta doorashooyinka dalka iyo sidoo kale isbedelo waaweyn uu ku sameeyo magaalada Muqdisho. Halkan ku soo biirsi aad u hesho warar iyo macluumaad joogto ah.